warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda Soomaaliya oo garab ka helaya dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab oo saakay ka dhacay deegaan lagu magacaabo Hurweyn oo ku dhow deegaanka Nuur Dugle oo ka mid ah deegaanada gobolka Shabeellada Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabelle. Dagaalka ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen deegaanka Hurweyn. qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la xiriirtay warbaahinta Galgaduud ayaa inoo xaqiijiyay in Al-Shabaab ay deegaanka weerar dhowr jiha ah ku soo qaadeen. Hurweyn ayaa ka mid ah deegaanada fariisimaha u ahaa ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka, waxaana dagaalka ka dhashay saaka halkaasi ka dhacay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac ee ku dagaalamay halkaasi. Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in dagaalka halkaasi ka dhacay ay khasaare ku gaarsiiyeen maleeshiyaadkii soo weeraray Al-Shabaab. Inkastoo aysan jirin warka madax bannaan, warkaasi oo xaqiijin kara khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarkii Al-Shabaab ay saaka ku qaadeen deegaanka Hurweyn ee ku dhow deegaanka Nuur Dugle ee gobolka Shabeellada Dhexe. Warar kala duwan oo soo baxaya ayaana tilmaamayay in gurmad xooggan oo ka socda dhanka dowladda uu gaaray deegaanka Hurweyn xilligaasi wixii ka dambeeyana ay dagaalku oo noqday mid sii xoogaystay, waxayna wararka intaasi ku darayaan in ciidamo ka tirsan xoogga dalka ay si dhab ah ula wareegeen gacan ku haynta deegaanka, ayagoona howlgalka lagu baacsanayo maleeshiyaadka Al-Shabaab ka wada tuulooyin hoostaga deegaanka lagu magacaabo Hurweyn oo ka mid ah deegaanadii dhowaan lagala wareegay maleeshiyaadka Al-Shabaab. Howlgallada ka socda labada gobol ee Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan ayaa maalmihii la soo dhaafay ahaa kuwo si xowli ah u socda, iyadoona dadka deegaanka oo garab ka helaya ciidamada dowladda ay wadeen sahmin joogto ah oo ay ku baacsanayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Dhanka kale, war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri in ilaa iyo 40 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab lagu dilay, tiro kalena lagu dhaawacay howlgal qorshaysan oo ciidanka xoogga dalka, ciidanka sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka iyo saaxiibada caalamiga ay ka fuliyeen deegaanka Cali Fool Dheere oo hoos taga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe. Howlgalkan oo ahaa mid bartilmaameed ahaa ayaa waxaa lagu beegsaday xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab xilli ay isku abaabulayeen dhulka kaymaha ee ku yaal deegaankaasi. Howlgalkan ayaa qayb ka ahaa qorshaha ururka Al-Shabaab looga ciribtirayo dalka oo dhan, isla markaana lagu joojinayo dhaqdhaqaaq kasta oo ay iskaga gudbi karaan meelaha ay xaraadiga ku yihiin. Weli ayaa lagu yiri warka dowladda Soomaaliya ka soo baxay. Hadalka dowladda oo sii socday ayaa waxa ay dowladdu u mahad celisay shacabka Soomaaliyeed oo qayb ka ah dagaalka ururka Al-Shabaab iyo saaxiibada caalamiga oo garab taagan dagaalka ciidamada dowladda ay wadaan. Dowladduna waxa ay mar kale ugu baaqaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed ay marin habaabiyeen ururka Al-Shabaab inay isu soo dhiibaan, iyagoona dowladda ay gacan furan ku soo dhaweynayso dhalinyarada ka soo baxda kooxdaasi, ayaa lagu soo gabagabeeyay hadalka ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya.